وعديان وحيابها تاجن مدوين كان دنبابة تاجنا وحان رواينا هل كان شركة مدحوينها فري وحاسة وجمع هذا علينا يا مركو هراء وزيرك يا وزارة ده وزير حجانك يا أجاسنك وزارة ده إيو علماء دي شرفت على هيدا ليش قيني سي يا إن الله أنت كقيب كشيء صو أباب شيء تبان تابسي هرجلسي شركان قيمها بدن آدي بان وجمع هذا علينا يا ويماتين waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado shirka maadaama madaxweynuhu furay waxa la wixii ka soo baxay ee xukuumadda iyo dawladda ku aadanaa waxa la wixii madaxweynuhu u ballan qaaday maadaama aan anigu laanta fulinta aan hogaamiyo waxaan ballan qaadaynaa inaan fulinayno intaas kadib waqti badan ma hayo laakiin هذا البضن باي هاي مرات قاركود إن شيء وجعل لها علماء هرتوض وحاسك سو كوبية دور قضب وكلية علماء والمعلمين والمربين وحيسو صاران أجيال كيل أركايبا وحوح برادد آد أبضن مركب بلشدان معلمين تيدا الصحة هل كان يفرديان waxaa marka u baahan haday daahirad soo baxdo daahiradaha soo baxday waxay u baahan tahay daraasiin waxa ugu horeeya marka la daraasinayo in la qiimeeyo waxaan filayaa maalmahan oo dhan waxaad ku jirteen inaad daahiradaas rogrogtaan maxaa soo baxay maxay sidan u noqotay maxaa keenay waxan isjiijida is-eedeeya xagga la isu rogrogo laakiin ugu dambaysta waxaa soo baxay mirahii hadda meeshan laga akhrinayay oo aadka u wanaagsanaa waana lagama maarmaan marka in muraajacadaas la sameeyo oo dib laysu eego oo la yidhaahdo traagii dheeraa safarkii dheeraa ee dacwada iyo waxbarista maxaa qaldamay maxaa saxsamay maxaa keenay halkan aan maanta taaganahay maxaa keenay in magacii diinta islaamka in dadka lagu gowrgowraco oo dhibka intaad aragteen la eg lagu geysto natiijada isgaadheen waxaasoo dhan waxaad u samayseen waxay yihiin waad fasirteen waxa ay yihiin baad sheegteen waad ku mahadsantihiin cid walbaad la hadasheen waxay la tahay hadday jiraan dhaga wax maqlaya cid walba ama qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed bayaanka culimadu uu la hadlay waxaa la rabaa marka shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa oo dawladdu ugu horeyso anagu ugu horeyno in aan dhagaha furno sidaas ay culimadu ay sheegeen bayaankooda ku xusan inaan qaadano waxa ay yiraahdeen iska daaya inaan ka fogaano waxa ay dhaheen sidaa yeelaya khayrka ay noo tilmaameenna inaan yeelo dhammaanteen waxaan filayaa aniga in culimadeenu ay ku guuleysatay inay diintan soo ilaaliso dalkana soo ilaaliso muddo dheer laakiin marka la rabo in loo yimaado dawladnimada waxaa la rabaa inaan dib isu qiimayno maxaan soo saarnay waa la dadaalay maxaa la soo saaray waan soo saarnay dad quraanka akhriya oo wanaagsan waxaan soo saarnay dad salaada ku fiican soonka ku fiican culimo ah qiimo badan waan soo saarnay laakiin ma laga yaabaa inaan soo saarnay oo aan wax barnay qof diinta islaamka yaqaana oo xajka taga oo salaad iyo soon
kiisa aad u qiimo badan yahay oo hanti ilaahay siiyey oo laakiin hantidiisa ku bixiya in dadka la laayo oo khawaarijta siiya hadda aad ka hadlayseen ma dhici kartaa inuu jiro ma dhici kartaa inuu jiro qof salaada safka hore ku tukada oo xajka iyo cumradaba taga oo hantidiisu xaaraan tahay oo diin la baray oo diinta yaqaana ma dhici kartaa waxaan u baahannahay inaan isdhahno dib ugu noqonno maxaan ku fayl garownay oo hadda laga bilaabo aan ogaano maxaa muhiim ah oo ay tahay inay tarbiyadeennu ay sal ka dhigato aniga waxa ay la tahay dhowr shay baa muhiim ah inay tarbiyada qaybtii rabo ka imo tashkiilaadka hadda la sheegay ee laga kala yimid iyo xarakaadka iyo jamaacaadka laga kala yimid meeshii la arkaba laga kala yimaado laakiin aniga waxaan qabaa in lagu heshiiyo natiijada la soo saarayo ee qofka Soomaaliga ee soo saarayno ama jaamacad ha ka soo baxo ama jaamic ha ka soo baxo labadaba midku rababa ha ka soo barto laakiin qofka Soomaaliga ah markii uu wax soo barto waxaan qabaa aniga in dhowr shay ay laga maarmaan tahay in laga helo kow marka laga tago inuu qof muslima oo aqeedadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu ay wanaagsan yihiin marka laga reebo qofka Soomaaliga waa in uu noqdaa qof dadka la noolaan kara bulsho wada noolaan kartaan u baahannahay bulsho wada noolaan karta ayaan u baahannahay oo ayadu qofku Soomaaliga waa inuu la noolaan karo qofka waa inuusan sidii beri dhacday oo annagana ugu dhacday uusan baabuurka kaga degayn buur cidla ah haddii hees la daaro hees maa nashiido haddii la daaro oo laakiin dhug wax ka yaraahdidaas iddajiya anuu waan degayaa meel cidla ah keligiis inuusan ku degayn dadka la noolaan karo waxoogaa iska dhegaysan kara xataa ama ha naco ama ha daaye bini aadamku in la noolaan karaa la rabaa marka kaas waa qodob dadka kalena waa inuu la noolaan karo yacni alra'yi wara'yi alaakhar waa inuu ogol yahay waa inuu ogol yahay in la iskhilaafi karo haddana la wada joogi karo la wada noolaan karo oo uusan dhahayn haddii mar la khilaafo yacni wixii black and white ama waa inuu wax caddaado ama inuu madoobaado qofka noocaas tarbiyada noocaasa waxaan qabaa inayna jaamicna ka soo bixin jaamacadna ka soo bixin dhibaatooyinka ina qabsaday bayna ka mid tahay oo soo baxday qofku black and white haddaadan adiga ii ekayn diinta ma haysatid ama si la rabay ma haysatid waa inaad aniga ii ekaato shakligayga u ekaato sidaan ahay ahaato noocaan ahay waa inaad ahaato saan u fakeray waa inaad u fakerto haddaada saa ahayn caqiidadaadu way khaldan tahay adigu waad khaldan tahay wuxuu dhan baa kaa khaldan mas'aladaas waxaan qabaa in lagu baraarugo oo culimadu ku baraarugto loo sheego dadka in waxyaabaha qaarkood la isku khilaafi karo ra'yi wara'yi aakhir kale weligiis inuu soo jiray taas waa qodobka kale ee muhiimka waxa waaye waa inaan soo saarno qof aan nidaam diid ahayn nidaamka waa inuu qofku ogol yahay waa in la xukumi karo waxna xukumi karo waa in qaanuunka uu ilaalinayo laakiin markii arday la ahaayo banaanadaas la joogayoo u qoran tahay masalan in la imaado 10 habeenimo wax ka dambeeya aysan jirin waa inuusan Soomaali kaliya uusan iska imaanin 11 aniga way ogyihiin dadka aad baad u wada garanaysaa Soomaali kaliya 10 baad arkaysaayo 11 marka la gaaray waxaas la yiri ma iska dhib ma leh waa la iska imaanay nagee waa iska tageynaa marka waa in dad nidaam ogol oo kayasitiga iyo fawdada waa in aan diidnaa oon ka hortagno oon dadkeenna ku tarbiyaynaa in fawdada laga taga qodobka labaad waxa waaye waa in aan dadkeenna barno
وحل إنه جرا وحلا يرادا دن جود والله إلاليو دن جود وحلا نهاجرته وحلا يابا إنه حافظ القرآن يهاي قفكو وناكسين يهاي عاودن وتهجدو تاغنا لكن هدو غوريسا كسو بخو oo guriga hortiisa ama guriyaha hortooda uu qashin ku arko waxa laga yaabaa inaysan dhibin qofka hadii uu arko xoolo ummadeed oo la dhacay inaysan dhibin hadii uu arko wax ummadu leedahay oo kharibmaya uu toosin karo inaysan dhibin oo caadi qofku ay la ahaato marka waa inay jirto wax la yiraahdo dan guud oo hadii la waayo cid ilaalisa dhibka iyo mashaakilku dhammaan dadkoo dhan ay camimayaan waxaan qaba marka ilaalinta danta guud waa waxyaabaha ay naan sameyn ee ku fashilanahay ama aan culimo ahaano ama aan caamo ahaano iskaga mid kanahay kamid tahay marka tarbiyadeenu waa inay saldhigato hadda kadib meelahaas aagagaas waa meelaha dawladnimada iyo dadnimaduba ay ka soo bilaabanayso way inta waxa dheer waa inaan ka fakirnaa waxyaabaha laga daaro saddexda point ee laga daaro laga kiciyo qofka Soomaaliga laga kicin karo siday u wada noolaan lahayn inaan ka wada shaqeyno ayadana in laga fikiray u baahantay say ku wada noolaan karaan oo la isugu daraa oo ku wada shaqeyn karaan saddex arrimood oo muhiim ah saddexdaas waxa ugu horeysa Allahu Akbar oo diinta ah midda labaadna waa axyaa wadani oo dawladda iyo dalka ah midda saddexaadna waa qabiilka saddexdan oo mid waliba gaarkiisa muhiim u yahay si isugu wadna waxay u baahan tahay in ayadana tarbiyadeenu ama culimadeenu laga fakaro sidee la isugu wadaa dawlad iyo qabiil dal iyo diin marba inagu maxaan sameynaa marba mid baan ku guurnaa markaasaan dadka kuleynaa culimadii la leenayaa hadda 700 la leenayaa waxa laga yaabaa inay axyaa wadani dish iyo dad laga yaabo inay wadaniyad si kale loo soo sheegay haddana Allahu Akbar tiiba ina leynaysa oo qof Allahu Akbar le markuu kugu dhufto ku dilo ku gowraco ayaa dadka dilaya oo markuu qarxinayo dadka uu soo dhex galo takbiir dheer ku dhufanayo oo moodaysa in maaragti uu jannadii galay ayuu ku dhufanaya qabiiltu inagu hayana waa wada ogtihiin iyo dhibku inagu soo gaarsiiyay ilaa haddana inagu hayo marka mufradaadkaas ama canaasirtaas muhiimka ah qabiilku waa muhiim diintu hadda waa wada ogtihiin ومهم طبعا يدا ugu muhiimsan qabiilkuna waa muhiim wadanka iyo dalka iyo dawladuna waa muhiim saddexdabana dawaan haysanaa sideen isugu wadnaa dawladii iyo qabiilkii waa la isku wadi laay waa lagu wareersay hab la isugu wada laay waa ogtihiin siyaasadda say u qasayso dawladda say u qasayso competency-ga iyo hatta qiimihii wadanku uu yeelan lahaa qabiilku uu hortaagay dhibaato ayuu ku hayaa dalka tuuga lama cayrin karo hadii la cayriyo saf baa la soo galayaa odaygii iyo sheekhii iyo xildhibaankii iyo wasiirkii kulligood way difaacayaan tuuga caadi u difaacayaan xataa hadduu shabaab yahay way difaacayaan oo ogtihiin annaga dirsanay oo shabaabku noogu diray hadda waa ogtihiin wax ka socda hadda meelahaas la qabtay annaga adeer dirsanay waxaan dhahnay shabaabku noogu dhex jiro maxaan ku dhahaa dadka nooga soo qaqabo waxaasaan dhahnay haddana ayakii buu leynayaa markuu soo galo isqarxinayaa marka culayskaasaa jira inaan marka isku dhex wadno ayaan u baahannahay canaasirtaas way isku fashilmeen waan isku wadi la'nahay tab aan isugu wadno inaan helno waaye maadaama halkan ay yihiin dadkii murabbiinta dadkii tarbiyanayay waa inaan helnaa dad Allahu Akbar tooda rumaysanaya diintooda oo ku dhagan qabiilna ah oo qabiilka Ilaahay dadka dhaliyay wadaniyiin ah dalkoodana jecel
mid walbana ka kale inuusan ku xadgudbin oo qabiilku meel buu leeyahay meeshiisa inuusan soo dhaafin oo halkiisa lagu hayo diintuna waa diintaas de qofkii dawladdii iyo noloshii iyo dhammaan wixii oo dhan hagaysa laakiin waa in aan lagu xadgudbin oo waa meesha hadda la leeyahay dawladdu ha ka ilaalisee uusan intuu qof iska imaado meesha rabo uusan u jeedin waddanka dalka in la jeclaysiiyaan u baahannahay dawladda in dadka la jeclaysiiyaan u baahannahay waxaan u baahannahay in aan dadkeenu ogaadno oo la baro dawlad la'aan inaan dal jiraynin dalla inuusan jirayn dawlad la'aan diinna inaan la haysan karin la habayn karin la noolaan karin dawlad iyo dal la'aan sidaa darteed waa in dawladnimada iyo dalka dadka la jeclaysiiyo waay oo ay tarbiyada gasho masaajidka ka soo masaajidka inay gasho waay waa la sheegaa oo mar walba de waa la akhriyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa maka markuu kasii baxay sideen uu yidhi dhammaan intaasoo dhan waa la fasiraa laakiin markaad u noqoto caalamka oo practicalka markaad timaado iyo camaliga waxaa kuu soo baxaysa tarbiyadeennu inay meelahaas ay dhabandhuuqo ka leedahay ama aysan si fiican maaragtay isula sinayn meeshaas ma sinno marka waxaan u baahannahay in canaasirtaas ay culamadeenu dib u eegaan haddii ilaahay idhaahdo midka ugu wanaagsan oon qabo aan marka kusoo gabagabaynayo oo aan kastoon soo sheegay waxaa weeye dadkeenna oo dib heshiiya oo soomaali heshiisa oo hadda annaga xukuumadda noo ah ama madaxweynaha halkudhagga ugu weyn ee uu la yimid ah soomaali heshiisa dunidan heshiis la ah waxay ka bilaabanaysaa maantay ka bilaabatay waa markii iigu horreysay oon arko culimada iyadoo tashkiilaadkoodan kala duwan iyo jamaacaadkoodan kala duwan oo saan isula fadhiya oo bayaan isla soo saaraya oo sidaan u kaftamaya oo sidaan u wada hadlaya waa markii koowaad oo aniga aan arko waay sidaa darteed waa horumar waana bogaadinaynaa waxaan rajaynayaa halkan ay ka bilaabatay waa in wax la wada yeeshaa oo masaajidda la wada yeeshaa oo dhib ma leh masaajidkaad joogto inuu ka istaago nin kale oo jamaaco kale ka yimid oo deedna weliba fikirkiisa uu ka sheego wax dhiba ma leh iska dhegayso ogolow in lagula nool yahay ogolow in lagu khilaafsan yahay ogolow aragtidiisa ha jeetiyo adigana isku nab waxoogaa isku xaji iska dhegayso laakiin ha la ogolaado masaajidda in la wada yeesho oo la wada isticmaalo ha la yeesho oo ilaahay baa iska leh masaajidde sheekhanina ra'yigiisu ka jeedsanayaaye waxaa waaye ogolow in aad dhegaysato wax aadan raalli ka wada ahayn ogolow masaajidda marka in la wada yeesho waaye in la joojiyo waaye in culimmadu ay yacni waxaana soo martay oo dad iska garanaysaan laami laba masjid oo u dhaxaysa laami baa u dhexeeya labada masjid marka way is dhageysanayaan labada sheekh mawlid buu ka hadlaya marka kan halkan buu ka hadlaya wuxuu sheegay waa beentii kii kale uu dhageysanaya kaas wuxuu sheegay waa beentii dad fara badan ma meeshii taagay laamiga ka buuxan dadkii way dhageysanayaan labadii way dhageysanayaan waxaan rabnaa daahirtaas baa waxaan mashaakilaadka waxyaabaha keenay ay ka mid tahay marka inaynu waxaasoo dhan aan ka weynaano oo sidan loo bislaaday uu bisaylkaasi keeno oo diintu way isugu keen jirtaa ilaahay isugu keen daree aan isku darsannoon ogolaana la rabaa marka intaas ayaan dhihi lahaa meeshan ay ka bilaabatay waana la guulaystay runtii gabagabaduna waxaa weeye waa saad sheegteen cadow maan la dagaalamaynaa cadowgaasna waad sheegteen waad ku mahadsan tihiin waad caddayseen wax ay yihiin waa khawaarij jihaad baan kula jirnaa waxaan rajaynaynaa in la garab istaago ciidamadeenna sharafta leh kula jira jihaadka kula jira waxaan rajaynayaa in loo duceeyo waxaan rajaynayaa dal iyo dibad in loo midoobo cadowgaas saan isooga soo afjari lahayn sanadkan ilaahay idankiis waa sida la sheegay caamul jamaaca la dhahay waana caamul nasri dhinaca kale dowladda waxaan rajaynaynaa inay nimankaas naga soo gabagaboobaan waxaan rajaynaynaa in cafiskii deynta haddii ilaahay idhaahdo laynagu lahaa iyo ribadii madaxa inaga fushay
in ayadana ay naga soo gabagaboobi doonto haddii la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inaan dastuurka dalka u dhammaynayno iyo dib-u-eegistiisa aan dhammayn doono intaas haddaan samayno waxaa bilaabanayaa waa tanmiyadii iyo waddanka in la hormariyo iyo in dhaqaaluhu uu kor u kaco iyo in dadkeenni soo noqdaan iyo in sharaftii Soomaaliyeed ay dib u soo noqoto marka guul ayaan rajaynaynaa ilaahay idankiis wax yar baa inooga dhimane aynu dhammaanteen aan ka wada qayb qaadano aad iyo aad mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh